I thought were strange. It went deeper than just speaking a different language. It was the way heertaad baa idiin salaamayaa topiga maanta aan jeclaan lahaa inaan dee nafteedana u diro ila mar walba iniga uun dhiirigelini motivation ila daba taagnaan maaye ana wayna ka faa'iidaysto boqolka maalmood ee ka hadhay sanadkan su-aasha maanta waxa weeye boqolka maalmood ee sanadka ka hadhsan maxaad qabsan kartaa maxaad naftaada usoo biirin kartaa maxaad ku dadaali kartaa marka boqol maalmood maxaa lagu qaban karaa baad isleedihiin boqol maalmood ee sanadka ka harsan cusub hadduu ilaahay nafta inoo daayo anuu shaqsiyan waxaan ku soo koobay boqolkaa maalmood inaan qabsado 5 arrimood oo kala duwan 5ta arrimood oo kala duwan waxaan number 1 ka dhigay waa cibaado la-aanteeda anuu ma garanayo saa u noolaan kari lahaa marka cibaadadu waa halka aan shidaalka ka soo qaato waa halka aan enerjiga ka helo waa halkaan ku dego waa halka haddaay aan ciriiri yaro dareemo aan ku cararo ilaahayna mar kasta baryo marka insha allah inaan ku dadaalo salaada soonka sadaqada in quraankan akhriyo ayadu waa qorshahayga number 1 ka weeyaan insha allah inaan cibaadada badiyo oo mar kasta ilaahay u dhawaado waxa igu xiga sportku ayaduna waxa weeyaan nolosha ay ka mid tahay khaasatan imika anigu 3 bilood oo dambeysay haddii fasax laga hadlo haddii dalxiis laga hadlo haddii casuumad iyo cunto iyo waxaan ku wada sheeko laga hadlo 3 bilood oo dambeysay aad baan u cayilay miisaanan iska riday mar hore baa igu soo laabtay hadda markaas saa u cayilan yahay iskama helin ma fahantin qofku horta inuu isagu iscajabiyo ma ogtihiin waxay igu xigaa savingsku waa sanadka soo socda haddii dalxiisan rabay haddaan wax rabay inaan iibsado sanadka soo socda waxyaalaha inaad u yar fikirto bal boqolkaa maalmood baan isleeyahay sidaad wax u dhigan kartaa hadday adeeg noqoto wixii guriga la cunayay hadday noqoto dhar la iibsado hadday noqoto qalin la soo iibinayo wax kasta uwad kuu baahdaan waxaan anigu nafteeda ugu baahanahay wixiga writing horta anigu shaqsiyan waxaan soo qoray 3 buug 2 novel oo French baan intaba ku qoray midna waa sidii maansada marka buugagaasi waxaan jeclaan lahaa inaan dib u soo habeeyo dib u soo qoro marka waxaan ka bilaabi lahaa boqol maalmood kuma wada dhammayn karay 3 buug inaan horta buugii ugu horeeyay dib aan u soo qaato aan waxyaalaha ku biirin karayo ku biiriyo waxaan ka masixi karayo ka daayo waxa inaan dib u habeeyaan jeclaan lahaa oo second edition oo kale uu sameeyo haddii la yiraahdo imika ahaan horta af Soomaali kuma turjumi karayo waxaan ugu turjumi kareen anigiiba af Soomaaliga dirqa ku qoraya imika inaan horta af Soomaaliga barto soo loo qoro kadibna insha allah aan ku dadaalo turjumaadiisa taasina waa wax hadduu ilaahay naftayda iyo balaanka ku jira اللهم صل على محمد maxaa igu dambeeyoon halkaa ku qoray learning inaan wax barto exploring inaan wax aan soo arko waxyaalo cusub iyaga batala waxaa jira bisha dhexdeeda maalmo aan fasax naftada u ogolahay inaan nasto nasashadaasi ma gurigu maan fadhinayaa ma guriga maan ka yar baxayaa haddaan guriga ka yar baxayo waxaan jeclaan lahaa inaan waxyaalo cusub indhaha iyo qalbiga iyo maskaxda soo tuso haddii meel cusub ومثلا مول جديد لفري مول كايس كسو داوضو دا wax kasoo iibsan karayo kasoo iibsado haddii maaragtay meel parka ama meel yaro geeda leh aan soo doogyaasha geedaha yar kasoo daawan karaan soo daawado haddii aan hal eraya oo igu cusub aan barto khaasatan imika waxa aad igu weyn oo jeclaan lahaa inaan barto waxa weeyaan tafsiirka quraanka mar hore igu dambeysay in aan bal insha allah hadba aayad intaan akhristo turjumkiisiina aan akhriyo amba aan dhageysto labada midun hadda labada isku samayn karayna alxamdulilah marka waxyaalaha baa asxaabe ii qorshaysan hadduu la yiraahdo adiga maanta muuqaalkan maxaa muqadan leeyahay horta in aniguna isku dhiirigeliyo number 1 adigana aan kaa siiya fikrad waayo waad aragteen markuu qof wax dhageysto amba uu arko amba wax u daawado shucuur bay gelisaa dhiiga ku yarkaca wuxuu qofkaasi fikradaha ku soo dega fikrado ayaa ku soo dhaca qofka muuqaalada noocan oo kale hadaad jecleed
jeclaysato hamugaan ee kunagu soo bir hadduu la idhaahdo waad gogtihiin marka janaal lagu soo biiraysa la sameeyo idinkaan intaa idin daayay aad baan idin salaamaya khiyaarta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu